liibaan xasan faarax waa wiil da'diisu ku dhowdahay 10 sano jir waxa uu ku nool yahay magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabelle waxa uu ka shaqeeyaa shaqo adag taasi caafimaad ahaan nadaafad ahaan aan wanaagsaneyn asiguna shaqadaasi qabanayo inuu ka soo saaro dhaqaale uu ku maareeyo nolosha qoyskooda oo danyar ah aabihiis waa uu nool yahay hooyadiis waa ay nooshahay balse wuxuu shaqadaas u qabanaya ayaa inuu qoyskooda caawiyo si u helaan waxay quutaan ay ku noolaadaan shaqadaasi ayaa ah baalash ama caseeyo qof kasta si u yaqaano liibaan waxa uu bartaa dugsi quraan waqtiyada qaar laakiin dugsiga cilmiga naadiga lagu barto waxba kama dhigto dhaqaale uusan awoodin wuxuuna walaalaha muxsiniinta ka codsaday inay ku soo garab istaagaan dhaqaale waxbarasho liibaan maxaa qabataa إمس سنة عصيته؟ 6 سنة. أيوة قالت لو سنة كواحد سنين. دولة يرشوالد. وحنو قط وحبرشنا هرمنا دكسنا هرمنا. وحبرشنا جعلنا. لعدت حكي المحيرس حكي نوينا وجينا. عرورت وأوبح دلك. waxaa jira caruur badan oo baalashlaha ay ku nool magaalada Jowhar oo aan haysan waxbarasho waxa ay rajo weyn ka qabaan inay helaan waxbarasho noloshana ay horumar ay ka gaaraan Yusni Maxamed Axmed Bulsha TV Jowhar hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 tayo waa Telesom